halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah kadib guushii Roble uu ka gaaray Fahad Yaasiin waxa uu iminka u weecday dhinaca farmaajo asagoo xeeryaha guud ee qaranku u yeeray wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya si wax looga weydiiyay cid la ogeed heshiiskii shidaalka ee ay shirkadaha heshiiye la galeen wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya in ka badan 25 musharax ayaa ilaa iyo haatan isku diiwaan galiyay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo loolan culus ku dhaxmarayo in ay ku soo baxaan gudoonka golaha shacabka booqiyo sawaxan hareeyay kulankii golaha wasiirada Puntland iyo xiisada u dhaxaysa Dan iyo Karaasho cirka isku sii shareeraysa Liban sareedo oo markale ku guuleysatay kursigeedii Khoba 154 iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed oo ka faraxashay doorashooyinka golaha shacabka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeedna waxa uu sheegay inay jiraan dad diidan in lala dagaalamo dadka maandooriyaha Muqdisho iyo gobolada dalka soo galiya qodobadaas iyo qodobo kale oo daasan ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato hambogaana subscribe saarta YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ka horreynaa kadib guushii uu ka gaaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dagaalkii Fahad Yaasiin ee ku saabsanaa inuusan u tartamin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa iminka waxa la soo wariyay in uu jiro dagaal kale oo ku wajahan madaxweyne Farmaajo waxa suurtagal ah madaxweyne Farmaajo in lagu soo eedeeyo ku tagrifalka hantida awoodda qaranka iyo inuu iibsaday kheyraadka dalka xeraalyaha guud ee qaranka mudane Salmaan Maxamed Maxamuud ayaa maanta soo saaray amar ku socda wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed xeraalyaha ayaa u yeeray wasiir Cabdirashiid ilaa maalinta Isniinta oo taariikhdu ku beegan tahay 25 bisha afraad ee sanada 2022 inuu ku yimaado xafiiska si uu cadeeyo heshiiskii shidaalka ee uu la galay shirkadda Coastline wasiirka waxa la faray inuu waqtiga ilaaliyo oo uu soo xaadiro 5 am oo barqanimo si uu cadeeyo cid heshiiskaasi qayb ka ahayd sidoo kale xeeraalyaha ayaa shaaca ka qaaday in wasiirka batroolka wax laga weydiinayo heshiiska shidaalka ee uu la saxiixday ee dhaxmaray wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline wasiirka ayaa dhawaan soo bandhigay heshiiska shidaal barista oo ay wasaaraddu la gashay shirkaddan waxa uu sheegay inuu door weyn ka qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Farmaajo arintan loo ogaa ay ku qaateen lacag dhan 7 milyan oo dollar arintan waxay durbaba daaha ka rogaysaa in mar kale dhinaca Farmaajo dagaalku u jahaysan yahay hadii wasiirku uu cadeeyo in Farmaajo door uu ku lahaa saxiixa heshiiskaas iyo sidoo kale in la qaatay lacagaha lagu qaatay horumarintana waxay ka dhigan tahay in lagu soo oogi karo qiyaano qaran taas oo looga hor istaagi karo inuu tartamo madaxweynaha Soomaaliya si kaseetaba ha ahaatee tilaabadan waxa ay mar kale mugdi gelinaysaa mustaqbalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo looga adkaaday wajiga koowaad ee dagaalka u dhaxeeya asaga iyo ra'iisul wasaare Roble Fahad Yaasiin oo ahaa gacantiisa koowaad ee midig ayaa ku waayay loolanka culus xilkiisii iyo sidoo kale inuu u tartamo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iminkana waxay diiraddu saaran tahay madaxweyne Farmaajo oo ay suurtagal tahay arintan inay gondaha la gasho wasiirka ayaa hore waraysi uu siiyay warbaahinta toos ugu sheegay in Farmaajo uu door muhiim ah ka qaatay heshiiskaas oo uu ku dhiirigeliyay inkastoo aysan jirin cadeymo muujinaya arintan haddana waxaa suurtagal ah wasiirku inay xeraalinta horteeda ka cadeeyo cidda ka dambeysay arintan sida u dhacday iyo sidoo kale waqtiga ay qaadatay qorshahan in la hirgeliyo waa dagaal siyaasadeed kale oo la saadaalinay halka uu tagi doono iyo sidoo kale inta uu leeyahay xadadkiisu shirkadda ayaa maalin ka hor sheegtay in heshiisku yahay mid dhaxalgal ah isla markaasna ay ka shaqeyn doonto soo saarista shidaalka dalka taas oo muujisay in kheyraadka Soomaaliya uu halis weyn ku jiro sharaxiinta isku diiwaan galiyay inay u tartamaan gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa aad u sii kordhaya ilaa iyo haatan waxa isdiiwaan galiyay musharaxiin gaaraya 25 mudane oo u tartamaya xilka gudoonka golaha shacabka sida gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad dadka isdiiwaan galiyay dhamaantood waxa ay muujinayaan rajo iyo ififaalo ku saabsan inay ku soo bixi karaan quraastaasi
dadaal xooggan iyo olole ayaa ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dadka u taagan gudoonka golaha shacabka oo aad u kordhaya la sheegay inay ka dhigan tahay xiisaha iyo xamaasaddu ay leedahay doorashada waxaa la filayaa in doorashooyinka golaha shacabka gudoonkooda iyo mid aqalka sare ay tusaale ka sii bixiso halka ay u socoto doorashada madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya jimcaha birigalab ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo diiwaangelinta musharaxiinta maalinka Sabtidana waxaa la dhageysan doonaa khudbadaha musharaxiinta u tartamaya gudoonka siyaabo kala duwan ay dadka Soomaaliyeed u arkaan tilaabadan hore loo qaaday ee dhinaca doorashooyinka golaha shacabka gudoonkooda iyo sidoo kale tamida aqalka sare oo kala dhacaysa 26 bishan Abriil iyo 27 bishan Abriil buuqiyo sawaxan ayaa hareeyay kulankii golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland kadib xiisada u dhaxaysa Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna kusimaha Axmed Karaash ayaa shir gudoomiyay kulanka toddobaadlaha ee golaha wasiirada waxaana looga hadlay amniga guud xaaladda dekedda Boosaaso iyo sidoo kale golayaasha deegaanka warbaahinta dowladda Puntland ayaa laga dhowray in lagu daabaco warkaas waxaana la sheegay in Axmed Karaash uu ku dhawaaqay war sharci darro habeenkii xalay ahaa kaas oo ahayd inuu la wareegay awoodda qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa dood ka keenay sida arrintaasi ku dhacday waxaana la sheegay in dhowr jeer golaha wasiirada buuq uu hareeyay iyadoo aan la ogeyn sida arrintan loo xallin karo Axmed Karaash wuxuu isku dayayaa in awoodda madaxtinimada Puntland uu asagu la wareego halka Siciid Cabdullaahi Dani uu doonayo inuu isku haysto awoodda madaxweynaha Puntland iyo midda musharaxnimo ee Soomaaliya sida la sheegay golaha wasiiradu way ku kala qaybsameen arrintan waxaana la sheegay inay suurtagal tahay in qaar ka mid ah golaha wasiirada xilalka laga ceyriyo Axmed Karaash waxa uu taageero ka helay qaar ka mid ah ururada siyaasadeed kuwaas oo u arka Axmed Karaash inuu Siciid Cabdullaahi Dani uga duwan yahay marka loo eego dhinaca wax wada qabsiga iyo xeelaysiga siyaasadda Asadiyaano iyo ururkiisa mideeya ayaa si wada jir u soo dhaweeyay tilaabada uu qaaday Axmed Karaash waxayna sheegeen inay la shaqeyn doonaan iyadoo sidoo kale tan la soo wariyay in ciidamada qaybo badan oo kamid ah ay taageereen dadaalka Axmed Karaash ee la wareegitaanka xilka guud ee madaxtinimada Puntland Koonfur Galbeed ayaa soo gabagabaysay doorashada xildhibaanada iyadoo ku laabatay kursigii looga dhagay magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu qabtay doorashada kursiga 154 ee golaha shacabka kaas oo ay ku celiyeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID kursigan waxa horay u soo qaadatay Sareeda Maxamed Cabdal haddana mar kale ayay ku guuleysatay Nasteexa Maxamed Yuusuf ayaa u tanaasushay oo la tartamaysay waxaana la sheegay inay ahayd haweeney iyadoo ay keensatay maadaama hore looga diiday gabar yar oo ay maxis ka dhigatay xildhibaan Sareedo ayaa cod gacantaaga ku soo baxday waxaana iminka ka qayb galaysaa doorashada gudoonka iyo midda madaxweynaha dadaalo xoogan oo doorashooyinka ayaa socda iyadoo maalmaha soo aadan la soo filayo in la soo gabagabeeyo doorashada ceel waaqi iyo sidoo kale tamida Jowhar gudoonka baarlamaanka oo la dooranayo dhawaan waxa la filayaa in dhammaan xildhibaanada intooda badan ay soo xaadiraan si ay codkooda u dhiibtaan si kaseetaba ha ahaatee marxaladda adag ee uu dalku ku jiro waxa la filayaa in isbedel uu ku yimaado maalmaha soo socda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Cijaar ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed inaysan ogolaan in lala dagaalamo maanduuriyaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa bulshada Soomaaliyeed sheegay in looga baahan yahay inay ogaadaan dhibaatada haysata ciidamada booliska kaliya inaysan wax ka qaban karin waxa uu sheegay in kooxaha burcada iyo kuwa maanduuriyuhuba ay yihiin dad la diidan yahay in laga cirib tiro magaalada Muqdisho iyo qaybo badan oo dalka ka tirsan waxa uu sheegay inay jiraan dad ka macaasha arrintaas oo hortaagan in laamaha amnigu ay ka gaaraan go'aan xasaasiya si kaseetaba ha ahaatee dadaalada xoogan ee lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho waxa hareer socda dhibaatada loo geysanayo dadka shacabka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkaad ka daawanaysa dunida TV sidaas